السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دواد مركلي برنامجكي كلنك شبل وإذن كجي إيمانيا مقبهية صومالي channel استوديوها مقالة نيروبي ودنك كينيا برنامجka alaaba waxaad su'aalo ku soo weydiisaan Sheekh Maxamuud Shibli isla markaana waxa uu si waafiya idinkaga jawaabaa su'aalaheena ku aadan arrimaha diinta Islaamka marka hore waxaan jeclaa lahaa sheekha isaga oo mahadsan Ilaahay xafiday inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka sheekh ku soo dhaw barnaamijka shukran sheekh hadii aan guda galno su'aalaha ay inoo soo direen daawadayaasha Somali channel su'aasha u horeysa waxay tahay السلام عليكم بهذا الصومالي channel يا شيخ شبل أدبان ugu mahad celinaya sheekha magacaygu waa Maxamed Cabdi Samad waxaan joogaa magaalada Portland waxaan weydiin lahaa sheekha maxay ka qabtaa in la xuso habeenkii la dheelmiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ee al-Isra wal Mi'raj بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد طبعا هذا حقيقة جرت القرآن كي السنة دون الشيئين habeen nabigana laga qaaday sallallahu alayhi wasallam inta Makka laga qaaday Baytul Maqdis ama Masjid al-Aqsa la geeyay qaybtaasi waa qaybta la yiraahdo Israha kadibna loo sii qaaday kor Mi'rajka ereyga uu taagan yahay kor in loo qaaday salaadahan lagu soo faral yeelay waaga intuusan bariina lagu soo celiyay Makka munaasabadaasi shaki ma laha munaasabad aad u qiimo badan bay ahayd sanadkii 10aad ee bicithada nabigana dhacday qiyaastii سامين النبي كله عليه الصلاة والسلام حسن الكاس والسنة تيرانية مرغبة والله كل ما يها وخديجية أبو طالب بالإنتان وقرب وينوها خديجة رضي الله عنها وأرضاها أحكامت الوصف فرض النبي وحل سنة كتبنات لبا سنة وكدن بيسام 3 سنة وكدن بيسام مكة وشوقي إلى 8 سنة ودن بمدينة وشوقي دوري 8 سنة وسين ولا النبي صلى الله عليه وسلم وحمد السويدين توحوي ما حسين نبي حفلات ما قبتي تماشاد يدبال دق ما سمي جوابته مر كليا واميا انت الله حصلي انت عن لهين بوحال اسكو راسيه النبي وحس قاره هي حفلات قاره يدبال دق دور يا 10 كاسان وهبينكي وما سمين hadii uu ahaa islaamka Madiina markii uu tagay ku yaraa iyo hadii islaamku intuu weynaaday awood iyo taladii uu wada yeesho jasiiradda carabta wada gaaray meela ka baxsanna u sii talaabayay kadib su'aasha labaad inaan isweydiinay mudantahay waxa weeye inagu maxaan xafladii dabaaldeg xusuus sameeynaa ma dabaaldeg caadi oo maalinkii xorriyadda wadanka oo kala mise waa dabaaldeg diin iyo khayr iyo looga jeedo haddii ay midda dambe tahay dabaaldeg khayr iyo liibaan iyo dhawaansho looga jeedo ma nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa intuu hafay ama halmaamay baan inagu dabaaldegaynaa oon xusaynaa ma khayr oo nabigu halmaamaan samaynaynaa xaflada jawaabta qof kastoo muslima waa maya haddiiba nabiga casan dhowr iyo 10 sano sii noolaa uusan xaflad qaban uusan xus samaynin uusan dabaaldeg u samaynin uusan samaynin wax astaan iyo camal gaar ah oo cibaado iyo khayr oo gaar loo sameeyo uusan samayn in aan la samayn baa sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnada nabigu wuxuu sameeyay waa lagu daydaa wuxuu ka tagayna waa laga daydaa cibaado maalin habeen la dheelmay ahayd oo korna loo sii qaaday hadday xus iyo cibaado iyo xaflad iyo maamuus gaar oo diineed iyo cibaado leedahay nabi maxamed kama hoos baxay sallallahu alayhi wasallam nabigu ma samayn khulafadii raashidiinta ma samayn saxaabadii kale ma samayn de intaasoo dhan khayr ka hoos baxo in la sameeyo ay ahayd oo ilaahay loogu dhowaanayo oo inaga aan haleelaynay ma jiraan nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi man axdatha fii amrina hadaa maa laysa minhu fahuwa raddun waxyaa bidacay ka mid tahay ee nabigu ku tilmaamay iyaakum wa muxdathaati alumuur saa darteed xuskeedu diintana sal kuma laha sidaad aragto cibaado ilaahay loogu dhowaadana maaha waa bidaca diinta lagu soo daray ee laguna dambaabayo ilaahayna uusan aqbalin weeye subxaanahu wa tacaala billahi towfiiq waad mahadsantahay sheekh daawadaha kale ee su-aashan labaad inoo soo diray waxa uu leeyahay waan idin salaamay sheekh Shible iyo daadiyaha barnaamijka salaan kadib su-aashaydu waxa weeye waxaan hayaa aabahay oo xanuunsan wuxuuna qabaa 3 xaas oo ay hooyaday ku jirto marka aabahay waxa lagu leeyahay meherkoodii
anigoo wiilkiisii ah ma ka bixin karaa aabba meherkaasi mahadsanideen alxamdulilah abdulaziz jawaabtu waa haa abbaa waxaani waa xuquuq iyo dayn lagu leeyahay bay ka dhigan tahay daynta haddii qofka lagu leeyahay isagoo nool iyo isagoo geeriyooday kadibba waad ka bixin kartaa gaar ahaan haddii aad tatawuc iyo tabaruc adigu aada samaynayso adigana sadaqo iyo ajir bay kuu noqon aabbahaana deyntii lagu lahaa way ka gudi deymaha kale un bayna la mid tahay dee xuquuqda lagu yeesho ciddii xaasaskaa ka mid ee dee iyadu caafiyadana dee xaq bay u leedahay adiguna haddaad ka bixiso ama ilmihiisu ay ka bixiyaan ama qof kaleba uu ka bixiyo deynta way ka gudi waana laga bixin karaa bilahi towfiiq waad mahadsan tahay waxa uu leeyahay daawadahan kale assalaamu calaykum waan idin salaamay bahda Somali Channel iyo sheeqaba salaan kadib waxa aan weydiinayaa sheeqa maalmahan arrin baa ka bilaabatay baraha bulshada ay ku wada xiriirto waxayna tahay dhalinta fanaaniinta oo heesta ayaa bixisay barnaamij loogu magac daray Quraan Challenge ama tartanka Quraanka oo ah inta fiidiyoo iska soo duubo gabadha fanaanada ah ama wiilka fanaanada ah iyagoo akhrinaya ayado Quraana kadibna dhahaya hebel iyo hebel ha ii soo jawaaban arrimahaasi ayaa ka soconaya baraha bulshada haddaba diinta islaamku maxay ka qabtaa waliba waxa uu leeyahay daawadahan dadkan quraanka soo akhrinaya ee fanaaniinta qaarkood quraanka ma yaqaanaan oo aayadaha ay jajabinayaan assalaamu calaykum alxamdulilah horta waa dhowr su-aaloodoo isxambaarsan mabda'a koowaad ee ah in quraanka lagu tartamo qofku uu ka qayb qaata tartanka arrintaas arrin wanaagsan wey dunida muslimkana quraanka lagu tartamo waana jiri jiray waana jiraa saas darteed qofku quraan inuu aqriyo ama cod ku akhriyo ama video ha duubo arrintaas arrin bannaan wey wax saameyn yeelan mayso qofkani waa fanaan iyo qofkani waa ganacsade iyo midkan waa siyaasi iyo waxba saameyn ma laha quraanka akhriskiisa iyo haddii lagu tartamayo ciddii akhriskiisa garanaysa tartanka ka qayb qaadan kartaa dhibaato ma laha waa midda koobaad masalada labaad ee ku jirta meesha waxaa weeye dadkan iska soo duubaya ama heesaadhe ama fanaandhe ama wariyadhe ama ganacsadadhe ama siyaasi dhehe waxaa laga doonayaa gaar ahaan video hadday tahay dumar iska soo duubayaan inay asturaadda iyo anshaxa ku dadaalaan baa laga doonaya waxay akhriyaan waa kitaabka ilaahay inay tahaaradiisii la ilaaliyo in anshaxiisii iyo aadaabtiisii la ilaaliyaa laga doonayaa qodobka saddexaad ee muhiimka cabdilcaziz waxaa weeye qur-aanka qofku markuu aqrinayo inuu laaxinka ka ilaaliyo gaar ahaan dee boos munaasabaddu waxay keenaysaa aada dad kula tartamayso inaadan laaxin iyo wax jajaban akhriyin in xataa inta aad aqriyayso cid kaa saxda aada la raasato intaadan fagaaraha la iman qur-aanka a iska soo saxdo taasoo ka mid noqon karta faa'iidada tartankani uu dhalayo in qofka intuu dib u noqdo tartankiina laga sugayo lasoo magacowdo lagu soo farfiiqay inta uu qur-aan jajaban ama laaxin ama macnihiisii bedelan yahay la tegi lahaa fagaarahana isku ceebeyn lahaa laaxin uu sixi karo macnihii bedelayana uu ku dambaabi lahaa waa munaasabad ku habboon inaanu tartankana ka hadhin qur-aan qaldan iyo laaxina uusan la imanin muxuu samaynayaa marka inuu raadiyo cid qur-aanka ka saxda ama guud ahaan ama gaar ahaan aayadaha qayb haddii lagaa saxo qaybta kalena waxaa laga yaaba inaad sii jeclaata iska sixitaanka marka waxaan ku gubaabin lahaa dhammaan cid kastoo qur-aanka aqriyaysa ama tartanka ka qayb qaadanaysa in waxay aqrinayaan ay iska saxaan oo laaxinka erayarooda si khalad u akhriday waa macnihii dhan bedelaya macna adugu aada xun inuu keenana way dhici kartaa oon diintuba ogolayn saas darteed de inaad dambaabto dadkana ku ceewoodo qur-aan ma yaqaana lagu yidhaha de labadaa ha isku darsanin wabilahi towfiiq waad mahadsan tahay waxaan filayaa jawaabtaasi in aad si fiican ugu faahfaahisay ee daawadihii soo diray islamarkaana dadweynaha kale ay ka faa'iideen jasaakum allahu khayran su-aasha afraad wuxuu leeyahay daawadahan assalaamu calaykum waan idin salaamay adiga iyo sheekh shible salaan kadib waxaan rabay inaan sheekha weydiiyo xaas ayaan qabaa run ahaantiina way cadho badan tahay kol iyo laba toona maahee cadhadeedu waa ay taagan tahay toddobaad hadday caadi noqoto toddobaadka kale way isbedelaysaa waan ku kadeedanahay waana u dulqaadan laahay
waxa ay ka cadhooto kuma sameeyo marka sheekhow gabadhaas haddii aan u adkaysan waayo furitaankeedu ma qalad buu igu yahay haddaan furane ma kuwaan toobaysaa carruur ima haysee alxamdulilah dabcan markii guurka shariicadeennu ay ka hadlayso raggana waxaa la yidhaahdaa ha laga guursado man tardawna diinahu wa khuluqa diintiisa iyo dabci wanaagiisa dumarkana nabigu wuxuu yihi ragga markuu la hadlayay fadfar bidaati diini waalkhuluq qofka diintii alla ka cabsigana leh dabeecaday dad kula dhaqantana leh diintuna qofkii xuduud iyo xakameyn bay u samaynaysaa dabeecadduna dadkii la dhaqankoodii bay wanaajinaysaa waa laga yaabaa qofku inuu cibaado badan yahay lakiin camal xun yahay qofku inuu camal wanaagsan yahay dabeecad wanaagsan yahay laakiin uusan diinta ku ficnayna way dhici kartaa walidaalika shariicadeennu waxyaabaha miisaanka aakhara ugu culus waxay ku dartay alkhuluq alxasan dabeecadda wanaagsan dabeecadda wanaagsanina waa dadka dhibkaaga inay ka nabad galaan dadka dhibkoodana aad u dulqaadato wixii aad tari kartana aad tarto saddexdaa qodob baa asaas u ah saas darteed halkan waxaa ka muuqanaysa ninka sida uu sheeganaya hadday run tahay kuwo lamida way jiraan oo xagga dumarkii dabeecaddoodii lala dhaqmi layahay kuwa raggii dabeecaddoodii lala dhaqmi lahayna way jiraan xaaladdu hadday sidaa noqoto qofkuna u sabri waayo iyadina isbedeli weyda waana abuur baa ka horreeyey say soomaalidu tidhaahdana ay noqoto dembi ma aha inay kala tagaan gurigu fa imsaakun bimacruufin oo tasriixun biixsaanin wey si wanaaga in lagu wada joogo iyo in lagu wada joogi kari waayo intii laisku dambaabi lahaa iyadoo dad waaweyn la yahay baa laysu yimide la kala danaysto qof walba qof ay isfahmaan oo isla jaan qaadi karaanna allaha u fududeeyo bilahi towfiiq waad mahadsan tahay sheekh mar kale daawadahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waxaan sheekha weydiinayaa qofka hadduu been sheego maxay diinta islaamka ku waajibisay in lagu fuliyo sida dembiga uu galay looga maydho alxamdulilah beentu waa laba midda koobaadii waa beenaan xuquuq bini aadam la xiriirin xaqna aan lagu goosanaynin ee beenta la sheega asalka beentaa la sheegay suwarkii la baneeyey marka laga reebo waa dembi cuquubo gaaroy leedahay anu garan maayo laakiin qofka waxaa laga doonayaa istikfaar iyo towba ilahayna usoo noqdo u towbad keeno ilahay uga dembi dhaaf yidhaahdo oo go-aansada inuusan dib ugu noqonin baa laga doonayaa hadday tahay beentu been dad taabanaysa iyo xuquuqdoodna intii hore waxaa dheeraanaysa dadkiina cafis inuu weydiisto wixii xuquuqee ku raacayna uu celiyo hadduu xoolo ku musqumaasuqay hadduu waxa uu sijaan jirin uu ku qaatay inuu celiyaa laga doonayaa hadduu beenta dad kale intuu ka sheegay sharaftoodii iyo qiimahooda wax ugu dhimayna iyagii cafis inuu weydiistaa laga doonayaa laakiin beenoo keligeeda oon waxyaabo kale lahayn cuquubo adduunka oo gaar oo ha lagu furay la yidhi anu garan maayo towbadaa iyo dadka cafiska la weydiisay wax xuquuqa raaci celintooda maahana bilahi towfiiq daawadahan kale waxa uu leeyahay sheekha waxaan weydiinayaa qofka muslimka ah haddii uu diinta caayo dad ka caraysiiyey awgeed diinta uu ka baxay ma la dhihi karaa alxamdulilah waxa uu sameeyey wax diin looga baxa wey ereyga uu ku hadlay ama diinta uu caayay wax diinta looga baxa waa tahay isagii shaksi ahaan ma ka baxay laba arrimood bay u baahan tahay in la eego cadhadiisu halkay gaartay ma cadho uu miyir qabo oo wax kala garanayaa mise waa cadho uu miyir beelayoo wuxuu leeyahay bu uusan ogeyn hadday tahay cadho uu xanaaqay dadka dabiicadda xanaaqooda isku mid maaha ama duruufo caafimaad oo la xidhiidha ha noqoto ama abuur ilaahayba ha noqote qaar ba markay cadhoodaan waxba kala ogeyn aan waxba la soconin aan garanayni waxay yidhaahdeen qofkaasoo kaleeta dee hadalkiisa looma qabto xukmu lmajnuun waayo oo nabigu alay slam kii xadiidkii caliha rufica alqalamu can halaatatin waxaa ka mid ah can ilmajnuuni xataa yacqil qof maankiisii maskaxdiisu maqan tahay ilaa ay usoo laabato oo wax kala garto waxay u baahan tahay haddaba in la xaqiijiyo qofkani markii uu cadhoodo qof wax kale og oo wax kala garanayo wuxuu leeyahay og ma yahay mise maaha taa waa marka koobaad marka labaad waxay u baahan tahay in la eego qofkani qof aqoon darro loogu cudurdaari kara ay haysa ma yahay qof aqoon darro loogu cudurdaari kara ay hayso ma yahay ilaan aqoon darrada qaar baan cudurdaar ahayn labada arrimood marka la xaqiijiyo kadib
xujadana lagu ogo loo cadeeyo waxaan diin ka baxay inay tahay hadduu ku adkaystay isagoo garashadiisu joogto de marka uu gaaloobay waa la dhihi karaa waxaase dhihi kara dee qof wixii xujo ku ooga ahaa iyo shuruudan ma la helay iyo sharci ahaan qiimeyn kara qof walba inuu iska yidhaahdaa maaha laakiin mar walba waxa uu sameeyey cayda diintu waa wax lagu gaaloobo wey isagii ma gaalowday arrimahaasaa la eegaya billahi towfiiq waad mahadsantahay sheekh mar kale daawadahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waa maxamed oo degan ingiriiska sheekha waan jeclahay waana ku xiranahay su-aashaydu waxa ay tahay ninbaa gabar ku furay 3 dalqadood oo mid ah kadibna waxa ay guursatay nin ay rabto inay iska furto si ay ugu noqoto ninkii horena waa ogyahay laakiin ma doonayo inuu ku noqdo base haddii ay dhacdo inuu ku noqdo maxaa dembi ah uu ku leeyahay iyaduna maxay dembi ah ay leedahay noo faa'iiday ilaahay ha ku xafide alxamdulilah horta marka koobaad haddii ninka kale ay guursatay weeye waxa wax ka xidhmaane xukunka sharciga ku xidhan yahay ninkan dambey guursanaysay ay doonaysay inay iska furto ma lagama hadlin ma la og yahay mise lama oga hadduu la og yahay waa malcuun nikaaxaasna ma asaxo lacana allahu lmuxallila walmuxallala lahu wey kan waxbaan xalaalaynayaa le iyo kan loo xalaalaynayo labadaba naclada ha ku dhacdo yiri nabigu sal ly slam mar kalena wuxuu ku magacaabay ninka saas oo kaleetee ogaalka u samaynaya attaysu lmustacaar orgi la soo qoorsadayo kaalay bil islaanta habeen iila seexo iska tagna la yidhi waana isaga halkaa isdhigoo ku talagalay haddii asagu aanu ogeyn oo guurka uu guursanaya guur daacada yahay guurku waa asaxayaa hadhow furitaan iyo furitaan la-aanna dee qofkay ka gooda iyada maahane asaga wey iyada ku talagalkeedu waa masalo kale marka de ninka hadduusan ogeyn guur daacadana guursanayo waxaana uusan ka warqabin oo ku talagalkiisa aanay ahayn guurku waa asaxaya isagu dembi ma laha guurkuna waa asaxaya haweentun hadday ninkaa guursato ninkeeda inay ateecdo reerkeeda dhaqataan laga doonayaa waxaa soo hartay iyada mid way ku dambaabi qasadkan iyo niyadan xun oo ah ninkan inay khiyaanto inay rabto cazimada iyo qasadkaasi ay ku talagashan tahay birina ninkii kharash iyo waxalba intuu galo reer dhaqasho ku talagalo dana buuq iyo dagaal inay kiciso ay rabto say meel kale ula qiilbaxdaay nooc khiyaano ah weeye way dambaabi ninkan la og ninkii wuu og yahay aa tiri inuu ku noqdana ma rabo ogaalkaa hadduu yahay ogaal uu ku dhiirigelinayo waxaa laga yaabaa in isu dhiirigelinayo uu leeyahy bal mar intay guursato markay guursato aad tiraadeen aheedhe waxbaan iisoo isku noqon mayna reerkaaga dhaqo oo inay guur la-aan joogtay culays ku haysa waa laga yaabaa laakiin haddii uu ku dhiirigelinayo ninkaasaa yeelo soo khiyaan oo soo sir dee xumaha la iskula taliyaayey dembi baa lagu dambaabaa hadduusan isagu talatiisa aynan ahaynna uusan kulahaynna wixii nusxigaa la isku leeyahay laakiin isagu dee asal ahaan kuma dambaabayo masalada nuxurkeeda iyo guud ahaan intaasaan ka dhihi lahaa billahi towfiiq daawadahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh waan ku salaamay marka hore waxa aan ku weydiinayaa marka khudba jimcadu ay socoto oo iimaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku saliyo marka haddii aan ku saliyo aniguna jimcadu may iga buraysaa alxamdulilah maya walow masala khilaafiya ay tahay khilaaf ka taagan yahay laakiin nabiga inaad ku salido sala allahu alayh ali wasalam ama qof soo galay oo dadka salaamay laga radiyo ama qof indhisaday oo alxamdu lilaahi yidhi raxamuka allahu la yidhaahdo oo masaa'il dhowr oo isku mid oo khilaafu ka taagan yahay khudbada inta lagu jira dadku ma samayn karaan mise ma samayn karaan nusuus cumuumaad iska hor yimid baana darteed keenaya qaar si guud wax u diidaya iyo qaar waxyaaba gaar si guud wax u faraya aniga waxaa raajix ilaa inaan dhibaato lahayn oo la samayn karo wixii waajibaadka sharciga sharcigu waajibiyey hadday sababteedii timaado sida salaada taxiyada baa loo tukanayo kuwana in lagu saliyi karo nabiga raajix sax ilaa sala allahu alayh wasalam kasaa darteed waxaan leeyahay dhib ma laha billahi towfiiq daawadaha wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekhow hadda ka hor waxaan dhisay dugsi qur-aan markaasi macallin aan keenay aan ku idhi ilmaha qur-aanka bar lacagna ha ka qaadin ilmaha agoonta ah kuwa kale ka qaada haddii aad rabto
marka sheekhow sadaqadaasi aan dugsigaasi u niyeystay mashruud ayay iga noqonaysaa mase way ii jirtaa alxamdulilah way ku jirtaa meeshaan wax lagu baranayo iyo agoonta aan wax laga qaadaynin insha allahu tacaala sadaqadaadii iyo ajirkaagii wuu kuu jiraa laakiin waxaa kasii ajir badnaan lahayd dee macalinka firi u dhiga carruurta bilaash aad tiraahdo adiguna aada waxoogaya biilkiisa iyo mushaarkiisa siisana dadaa haddaad awoodo way kasii ajir badanta laakiin dugsiga aada dhistay haddaadan adigu waxba ka qaadanaynin oo ummadda aan wax lagu barayo agoontiina looga dhigayo bilaash aan waxba laga qaadaynin insha allah ajirkaada waad leedahay bilahi towfiiq assalaamu calaykum sheekhow ayuu leeyahay daawadahani waxaan ahay gabar xijaaban balse waxaan saaxiib la ahay gabar gaalo ah oo aan iskuul isla dhiganno marka ay guriga iigu timaado marmar waxaan ku ordaa xijaabka marna waxaan is idhaahdaa waa gabar ee maxaad iska asturaysaa marka sheekhow gabartaasi gaalada ah markay guriga iigu timaado ma ka asturanayaa mise kama asturanayo kolley weligay jirkayga ma aysan arkin ayay tiri oo bannaanka aad baan ugu xijaabanahay balse guriga markay iigu timaado sheekhow maxaan suubiyaa alxamdulilah mar hadday waxa u imanayaa dumar tahay wax sababahoo gaarahoo fitno iyo bala ka shaqayn ay ku og tahay in ayna jirin waxba waajib maaha inay ka xijaabato dumarku guud ahaan waa isku mid dumar muslin iyo dumar gaalaba cala saxiix sida raajixa saa darteed qofkaa dumarkiihi wixii gacmaha iyo garbaha iyo luqunta iyo madaxa ama dhudhumada lugaha hoose ah hadday ka aragta dhibaato malax dembi maaho bilahi towfiiq daawadahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum sheekhow magacaygu waa bashiir waxa aan ku noolahay yurub waxa aan rabay inaan su-aal ku weydiiyo xaas ayaan guursaday anigoo afrika jooga mana aanan u tegin waxaan soo tegay oo yurub ayaan soo galay iyadana waa ay soo tahriibtay anigoo aan raalli ka ahayn haddii ay fur tiraahdo ama aan iska furo meher miyay igu leedahay jasaakum allahu khayran alxamdulilah haa haddaad sidaa ku furto meherkay lahaan lahaad umaa isku heshiiseen nuskiiba yeelan saa darteed baa qur-aanka ilaahay ku sheega oo yidhi haddii aada furtaan min qabli an tamasuuhunna fa nisfu maa faraltu waxaad u qadarteen eed ku heshiiseen nuskiiba yeelan haddii uusan jirin shardi ah furitaanka in lagu xidhay meherka inay cafido haddii ay fur tiraadoos yidhaahdo waan ku furayaa bishardi meherka inay cafido ay tirahdo waan cafiyey ama iyadu isaguba uu yidhaahdo waan ku furayaa meherkii haddaad iyo cafido siday ku timaadaba haddii shardi la isku xidha cafiska meherkii iyo furiinkii haddii la isku xidhana oo saa lagu furanay dee gabadh waxba kuma laha iyadaa ka tanaasushay haddii uun iyadun waxba lagu xidhin la furana haddii haddaan gogol la isku arkin nus bay leedahay haddii gogol la isku arkin isagoo dhammaystiran bay leedahay bilahi towfiiq aad baad u mahadsantahay jazaaka allahu khayran allah kaa ajir siiyo jawaabaha aad siinaysa daawadayaasha Somali Channel haddii aan su-aalaha sii guda galo waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo sheekha aniga oo 8 jir ah ayaan dugsi quraan oo aan dhiga jiray lacag ka xaday markaa xaaraanta iyo samaanta ma kala ogeyn hadda 13 sano ayaan jiraa markaan 13 sano jiro ayaan ka toobad keenay marka arintaasi ka waran hadda waxaan jiraa 16 sano lacagtaasi ma layga rabaa sheekh alxamdulilah horta dembi male milaha oo ilmuhu sabi buu ahaa ma qaangaarin markuu waxaan samaynayay xadiidkii calina waxaa rufica alqalamu can 3 waxaa ka mid ah can isabiyi xataa yabluq ilmaha da-da yar ilaa uu qaangaadho waxba dembi ma laha xoolaha iyo laakiin xuquuqda dadkii aad qaadatay waa lagugu leeyahay haddaad dugsigii iyo dadkii aad ka qaaday garanaysana waad siin oo waad u celin haddii aadan garanayninna qadarkii in la eg baad u sadaqayn say aakhare ajirkeeda u helaan iyadoo u ziyaaday wabillahi towfiiq daawadahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum marka hore waxaan salaamayaa sheekh maxamuud shibil iyo weliba daadihiyaha barnaamijka salaanka bacdi waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo qof muslin ah qalliin lagu qalay makiinad xoolo ma cuni karaa hilibkiisa midda kale waxa uu leeyahay maxay ka qabtaa diinta islaamka qof aan muslin ahayn haddii uu kuu kariyo cunto waxaan ku noolahay waddanka Sweden alxamdulilah labada masala midda hore makiinadan yaa maamulayay ku xidhanta haddii makiinadan cidda shidaysa ee dhaqaajinaysa uu muslim yahay ama kitaabi yahay yahuudi iyo nasraani ah
hilibka waa xalaal oo waa la cuni karaa intii la rabayna la gooyo ee xididadii in marka la gowracayo la qalayo la goyn jiraya haddii la gooyo cidda makiinada maamulaysa ee shidaysa ee daminaysa ee amarkeeda iska lehna ciday gowriciisu bannaan tahay uu yahay oo muslim iyo kitaabka iyo yuhuud iyo nasaara looga jeedaa taa wuu bannaan yahay haddii cidda dhaqdhaqaajinaysa ee maamulaysa inta aynan ahayn muslimna maaha yahuudna maaha nasaarana maaha kristanna maaha amaba wixii la rabay in la gooyo makiinadu ma goynayso markaa waa baktiga oo kaleeto hilibkaasi xalaal maaha marka qaacidada uu dib u raaco isaga hubso masalada cunto karinta hadday cuntada xalaal tahay haa dhib ma laha dharna waa dhaqi karaan cunana waa karin karaan nabigana calayh salaatu wasalaam intay yuhuuddii madiina degeedee gurigooda cunto ku sameeyaan ay marti qaadaan ayuu u tegi jiray sal ly slam iyagoo safara haween biyo soo dhaamiyey oo xataa ahlu kitaab aan ahaynna intay ka qaateen biyiheedii way ka cabbeen weelashana waa kaga shubteen marka najaasada gaalada ee la sheegay xisi maaha ee caqiide iyo caqiide xumo iyo diin xumaa looga jeeda inama mushrikuuna najasun walidaalika gaaladii lafteedii in la guursado ahlu kitaabkii baa la baneeyey qof waxaasuu guursaday gurigay u joogtaa gogol bay u tahay ilmay dhali jikadii baa la geli dadkii reerkii waa isku dharkii marka jirkooda ku taabtaa najaasaa loogama jeedo bilahi towfiiq waad mahadsantaha sheekh daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii kulanka shiblo oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi ee wadanka kenya haddii aad jeceshahaan barnaamijkan inaad ka qayb qaadataan waxaad su-aalihiina kusoo gudbi kartaan kulanka shible at somalichannel.tv.tv sidoo kale ciwaankaasi waxaad ka daawan kartaan ama aad ka hagan kartaan muraayada tv-ga sheekh haddii aan usoo noqono su-aalaheennii daawadahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waxaan salaamayaa sheekha iyo daadiyaha barnaamijka walaal ma lagu dukan karaa dharka ku sawiran xayawaanaadka iyo dadka alxamdu lilah marna waa xidhashadu ma banaana marna salaada asixitaankeeda qofku dharkaana waa ku dambaabayaa salaaduna waa asaxaysaa salaada shuruudda asixitaankeeda ka mid maaha inaadan dhar sawir la qabin waxyaabaha salaada jabiyana kuma jiraan inaad dhar sawir la qabto dharka sawirkaana ama salaad iyo salaad la-aan sidiisaan la ogolayn hadduu sawirnimadii baaqi ku yahay qadarkii taxriimka ahaa haddii uu yahay salaadii la yidhaahdana dee dembigaana waa gaarkiisa salaadiina way asixi walidaalika culimadanu tan oo kale waxay yidhaahdeen saxat wa casa salaadiina way asaxaysaa isna wuu dembaabayaa dharkan waa ku dembaabayaa waajibkiina waa ka dhacaya waa asaxaysa bilahi towfiiq su-aalahan waxay ka socdaan madarasada walaalaha bar ama baro ee 114 conference waxay leeyihiin su-aasha ugu horeyso assalaamu calaykum sheekhow hadda ka hor ayaan dhul u iibiyey ilmo agoon ah in lagu hayo oo wax lagu baro marka waxaa jirtay dad kale oo iyagu ballan qaaday inay dhulkaasi aan iibiyey ee iyagu u dhisi doonaan marka muddo ayaa ka soo wareegtay welina lama dhisin dhulkii marka sheekhow in aan dhammaystiro oo aan dhiso miyaa la iga sugayaa mise sadaqadii aan agoontaasi u niyeystay waa ii jirtaa alxamdu lilah marka koowaad horta waajib kuguma aha inaad dhisto inkastoo ay fiican tahay haddii dadkii ka gaabiyaan ajirka inaad dhammaystirato laakiin dee waxaadan adigu nadrin si kale agoon wax u bixiyo wax u dhis kugu waajibi maayo nadar iyo sharaadaad gashay haddaynan ahayn halkaa marka laga soo tago waxaa isweydiinta mudan dhulkii haddaan la dhisin muxuu ugu fadhiyaa agoontii waxa lagu bariya haloo dhisa la yidhi dhul iska bannaan u yahay muxuu macno ugu fadhiyaa haddii dadkiina dhisi waayeen sidana uusan manfaco ku lahayn waxaa loo baahan yahay dhulkaa in la gado ama dhismo kale lagu daro ama la geeyo meel dhul iyo dhismo uu ka gooyo si uu noqdo wixii wax la intifaacsado laakiin inta dhul cidlaun haddaad gelisay dhulkiina wax lagu intifaacayo uusan jirin dhulkii oon manfaco lahayn dee ajir ma laha martuusan nafci lahayn ajir ma laha haddaad agoon milki u siisayna dee iyagaa milki leh aduu sadaqada ajir baad ka heli dhisashadeeda iyo dhisasho la-aanta iyaga iyo ciddii u dhisee kale ee awoodday bay ku xidhanta laakiin hadday tahay meeshan cid gaara maanan siinin oo saan su-aasha u fahmaya in meeshaanu dhul baan gaday ama bixiyey dadna inay dhisaan baan ku heshiinay markaa kadib agoon ku intifaacaan agoon gaara haddaynan ahayn dhulkii waxaa ajir looga helaa inuu intifaaci yeesho
sidan hadduu intifaac ku yeelan waayo ha loo wareejiya si loo bedela si kale oo intifaac ku yeelan karo wabillahi tawfiiq jazaaka allahu khayran sheekh su-aashan daawado kale ayaa soo diray oo ka tirsan walaalaha madrasada bar ama baro waxa uu leeyahay salaamu calaykum sheekhow raalli ahaanshaha aan ninkayga raalli geliyo miyay ku xiran tahay inuu ilaahay raalli iga noqdo sheekhow ii sharax waxyaabaha ilaahay raalli ahaanshihiisa aan ku heli karo ma ninka ayaa ugu horeeya alxamdulilah jawaabtuna waa maya ninka uguma horeeya waxaa koobaad ilaahay rabbihiisa lagu helo tawxiidka ilaahay wey subxaana wa tacaala ilahay inaad rumayso iimaanka wey iimaanka ilaahay la rumeeyey baa kow ah wuxuu ilaahay kaa doonayo isagaa kow ah waxa ilaahay lagu raalligeliyey subxaana wa tacaala kadib waxaa xiga arkaantii iyo faraa'idkii waaweynaaye islaamka ayaa ka horeeya oo xuquuqdan waajibaadka iyo faraa'idka iyo arkaanta salaadii iyo soonka iyo zaka qofkii xool haysta iyo xaji qofku ku waajibayo in la gutaayey waxyaabaha ilaahay lagu raalligeliyey ka mid ah guud ahaana ilaahay khayraadka iyo daacaadka oo dhan baa lagu raalligeliyaa inaad ikhlaas u samayso ilaahay dartii kaa oon dan kalaadan ka lahayn dari diintii iyo shariicadii nabiga lala soo dirayna sala allahu alayh alih wasalam ay waafaqsanaato labadaana in laga helo baa ilaahay lagu raalligeliyay cibaadaadka iyo daacaadkiisa qadiyadda ninku taasay juz ka tahay ama qayb ka tahay waxa lagu raalligelinayo laba qayb dhinac bay leedahay raalligelintan ninka raalligeli la yidhi kow waa xuduuddii sharciga iyo xuquuqdu lahaa inaad ilaaliso wey hadduu daaco iyo maqal kugu lahaa hadduu guriga iyo ilmaha kugu lahaa iyo ilaalintooda iyo mas-uuliyaddooda hadduu kugu lahaa inaad si wanaagsan ula dhaqantoodan dhibin hadduu kugu lahaa raximka iyo dadka in la soo dhoweeyo raalligelinta lagaa doonayo waa wixii xuduudda iyo xuquuqda uu lahaabaa asaaso ee sharcigu u sameeyey laakiin raalligelinta kuma jirto dembi la galo dad la fogeeye la gooyo oo dad wax la yeelo dad la caayo in dad kale wax la yeelo in dembi la galo wuxuu ku raalli noqonaya wuu qayilayaaye dee sigaarkana dabka uga soo shid qaadka shaahi lagu cabi lahaana kaan soodhadii iyo faantadii lagu cabi lahaayee lagu kaban lahaana soo gad taa waa dambaabaysaa ay raalligeli lahay ma ilahay kugu cadhonaya raalligelinta ninku inta uu xaqa u leeyahay waajibka ah iyo inta aada ugu darayso mar walba waa inaynan wax dembiya macsiya a noqonin laa taacata limakhluuqin fii macsiyat illah waa ka nabig alay slam ilaahay baan dembi ka gelayaa aadamaanan ku ateecayaa lama ogola taasi waa qodobka koobaad qodobka labaad ee tixgelinta mudan waxaa weeye ilaahay baa lagu raalligelinayaa sababkee qaabkee waxaan inaad samayso waajib ilaahay ku saaray oo xaq ka dhigay wey markaad gudanaysa niyadaadu waxaa weeye waxaan hadduu rabbi sidan u jideeyey xuquuqdanna ku saaray inaad xuquuqdii rabbi ku saaray ka soo baxdo rabbi dartiina aada uga soo baxdo rabbi ku raalligelisa waay salaadda waxaad u tukanaysaa ilaahay baa ku saaray isagaadna ku raalligelinaysa xuquuqdanna waxaad u gudanaysaa ilaahay baa ku saaray isagaadna ku raalligelinaysaa oo ilaahay baad kaga baqaysaa samaynteeda intaa in la eg weeye ninkana waxaa laga rabo xuquuqdii lagu lahaa inuu ilaaliyo ilaahayna ku raalligeliyo dembiya macsiyana aan u gelin billahi tawfiiq waad mahadsantaha sheekh jasaaka allahu khayran daawadayaal intaasi ayaan gebi ahaanba kusoo afmeeraynaa barnaamijkii kulanka shibil oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi ee wadanka kenya haddii aad jeceshihiin barnaamijkan inaad ka qayb qaadataan oo su-aalihiina aad usoo dirtaan sheekha waxaad kusoo hagaajin kartaan ciwaanka ah kulanka shibil @somalichannel.tv sidoo kale ciwaankan waxaad ka hagan kartaan muraayada tv-ga sheekha jasaaka allahu khayran axsan aljasaa ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin allaha kaa siiyo miisaankaada xasanaadkana allaha kuu saaro sida ummadda soomaaliyeed aad ugu faa'iidaysay.